xarigayga waxaaba iga daran yani kitaabkan lagu xukumay layma siin inaan ku hadlo sababtoo laba dhinac baan la ku yiri ayaad eedaynaysan ku soo eedeeyay qolada kalena warbaahinta la hadlaysay anoo xiran oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yiraahdeen waa in la dilo oo waxay doonaan bay saarayeen anigana waa la soo qabtay layma ogolaan warbaahin waan xidhnaynta marka maanta ayuu ilaahay ogolaaday inaan hadlo oo sheego yani muxuu ahaa siday wax u dhaceen qodobka ugu dambeeyay walaalayaal waxa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yiraahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambaba waxaan ku yiri kitaabka ilaahay igu xukum marka waxa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la xeerka ciqaabta keligayna maaha ee waa kitaab yaalla maxkamadda oo dadka lagu xukumo walaalayaal ilaahay wuxuu ina amray inaynu isla xukun tagno kitaabkiisa iyo sunnaha nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaanu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin wuxuu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin ilaahay wuxuu yiri ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما آيات وحي عدينيسا سببت قرآن كوسو دقي وحو قرآن كوسو دقي إن أينو اسكو حكمنو أنا حرقيك وحابيك قدرا يعني كتاب كان ليقو حكمي وانو إني كان وانو ديك قدرنا هذا كتاب أنو إلهي سود دجين ليسكو حكمه إلهي سيدوك لوحيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكم كأن إلهي سودتين وحوي وحكم جاهلية أي آيات المامسة مركا يا إلهي وقع حكم وناكسن دول يقين ليني يا إلهي نوقع حكم وناكسن يا إلهي نوقع حير وناكسن يا إلهي نوقع شرعي وناكسن ولا ليا معد بين نوقع شرعي وناكسن ومايا جوابته استفهام كاستي واستفهام استنكارية سيدوك لا إلهي وحيدي سورة النور إلهي وحكولي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون آيات أنه حكاها الله يسألك حكم ككتابك إلهي إلهي وحليه منافقين تيسوا كورميا وحي أرانيا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الله يا الرسول كي سوان الروميني وانا نؤضيعنا أمر كيسا نقاضنا كدب نوابي تيسنيانا ويكورمنيا ويكوك عن سيريا وكوح كم إذا مسلمين أو منافقين كوك عن سيريا مركي كدب انت هاي رهدان إلهي كوا ما هاي عن سيريا وحولي كواسي مؤمنين ما هكوا حديدي صفاته دوا معي صفاته دوا حوي مركا كتابك على الله ويرو ويديدان وحولي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون هدي الله ويرو الله الرسول كيس سوء حكمه سوء لحدود وحكمه وحوي ويديدين وكتشسنيا marka walaalayaal dad islaam ayaynu nahay anigu saaka waxaan soo jeedinayaa oo aan u soo jeedinayaa madaxda iyo madax dhaqameedka iyo culimada iyo shacabka guud ahaan arrinka aan u soo jeedinayaa Cabdi Maalig ba xabsi ka soo baxay iska ilaawa laakiin Cabdi Maalig wuxuu idin ku baaqayaa war walaalayaal xeerka ciqaabta aynu iska dayno maxkamadaheena ka qaadno oo aynu ku bedelano xeerka Ilaahay soo dejiyay waxaan ku soo gabagabeynaya anigu qadiyadaydu waxa laga dhigay inaanu haysano meel iskuulis haysano war iskuulis ma haysano ashxaas gaar isma haysano ee marka la maxkamadeynayo qofka marka la maxkamadeynayo ayaa laga dhigaa inuu wadada hayaan anigu waxaan qabaa xarigaygu wuxuu salka ku hayaa waxa aan ka hadlayo xaq aan sheegayo cid walbo xaq sheegta oo taariikhda soo martay ama waa la dilaa
ama waa la xidhaa ama waa la fogeeyaa waa la eriyaa marka anigu arrinkaygu maaha arrin aniga i gaara waxaanan idinku baaqayaa idinka dadkiinnan halkan jooga iyo cidday dhegaysanaysaba walaalayaal waxa weeye nebigu sal ly slam wuyna faray inaynu muxuu ahaye munkarka suulinno yacni mid kastaba derajadiisa gacan ha noqoto af ha noqoto qalbi ha noqoto mid kastaaba intuu karaankiisa ha suuliyo waxaan maqlay inuu islaamay aasaasihii dugsiga abaarso iyo shabakadda abaarso guud ahaanba jonathan sar uu islaamay warkaasi jeelku igu soo gaadhay arrinkaa waan soo dhawaynayaa aad iyo aad baan runtii ugu farxay inuu islaamo yoolka aynu leenahay muslimiin waxa weeye inuu qof islaamo lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumar annacam ayuu nebigu sala allah alay wasalam ku yidhi saxaabi ka mida saxaabadiisa inuu cali ahaa baan u malaynaya marka inuu qof ilaahay kugu hanuuniyo qof qura waxay kaaga wanaagsan tahay geela cascas waxay inooga wanaagsan tahay diyaaradaha adduunka ayay inooga wanaagsan tahay iyo wax kastoo qaaliya marka inuu muxuu hayay sababtu ku islaamay ma garanayo arrinkiisan laga hadlayo ayuu ku islaamay yani ma si kale ku islaamay isaga inoo sheegi doona laakiin waxa weeye ninkaas uu islaamay anigu markaa waan soo dhaweynaya gudahana waa laygu sheegay xabsiga halkanna waxa weeye waxaan ka sheegaya inaan soo dhaweynayo midna waxa weeye waan ku darayaa islaamnimadiisa waxa weeye islaamnimadiisu waa inay dugsigiisa waa inay ka muuqataa shabakadda abaarso waa in laga arkaa maadaama qofkii muslim noqday waxii laga sheegayey waa inuu wax ka beddelaa sababtoo ah qof muslim baan noqday meeshayduna muxuu ahaye si kale u shaqaynaysaa dee isqaban mayso marka isagana waxaan u sheegayaa waxa weeye maadaama aad islaamtay islaamnimadaada ha laga arko shabakadda abaarso dugsiga abaarso ha laga arko jaamacadda barwaaqa ha laga arko dugsiga kaabe ee muxuu ahaye yani muxuu ahaye barbaarta ah ha laga arko intaas waa shabakadda abaarse ha laga arko walaalayaal waad mahadsantihiin